meefe waa xaafadda ay Soomaalidu ka degan tahay magaalada Johannesburg waxaana ku badan maqaayadaha lagu iibiyo cuntooyinka dhaqanka u ah ummadda Soomaaliyeed sidoo kale waxa ku yaala goobo ganacsi oo aad u fara badan oo ay Soomaalidu leedahay ajaanibta iyo dadka Koonfur Afrikaanka ah ayaa ugu yeeray Muqdisho yaray xaafadani waxay kulmisaa dhammaan Soomaalida ku nool dalkani Koonfur Afrika waana goob xudun u ah ganacsiyada jaaliyada Soomaaliyeed wuxuuna qof kasta u soo doontaa waxyaabaha daruuriga ah gaar ahaan kuwa laga keeno Soomaaliya Ibrahim Qaxwo waa meel caan ku ah qaxwada macmacaanka iyo cabitaanada la shiido waana meel bulshadu ay ku kulanto oo lagu keediyay agabka dhaqanka Soomaaliyeed milkiilaha goobtan Ibrahim Maxamed Cali Ibrahim Qaxwo ayaa inooga warbixiyay in dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolada fogfog ee dalkani Koonfur Afrika ay si jumlo ah macmacaanka uga soo doontaan isagoo intaa ku daray dalxiisayaal ajnabi ah iyo dadka Koonfur Afrikaanka ah inay had iyo jeer yimaadaan maqaayadiisa maqaayadan aan leeyahay waxa waaye soolo waxa laga cabaa sida qaxwaha shaaha sanjabiisha amba jinjarka ingiriiska afka khalad lagu dhahaa dadka markaan aan kaaga soo hormariyo Soomaalida aad iyo aad u jirto Soomaalida waxa ka mid location waxa loo yaqaan meelaha tuulooyinka ay ka imaadaan 20 sambuusi 3 mashmasha iyo bajiyaha waxa ay qaataan iyo doolsha anaga aan sameeyno cunto Soomaalida aad ay u jecel aad ay u xiiseeyaan waxa si dheer hadana dadka South Afrikaanka amba dadka ajnabiga amba cadaan amba madow amba hindi waynoo imaadaan ayagana waxay jecel yihiin waliba sida baajiyaha sambuusida mashmashka dhangalowga iyo icuni calaanji saa u taqaanid maqaayadahan lagu iibiyo cuntooyinka dhaqanka Soomaaliyeed ayaa ka cabanaya hoos u dhac dhaqaale oo ku yimid ganacsigooda kaasoo uu sababay xanibaadii lagu soo rogay guud ahaan dalkani Koonfur Afrika bartamihii bishii Maarso ee sanadkan 2020 taasoo looga gaashaamanayay faafidda cudurka COVID-19 waxaan ku sheegayaa coronavirus-ka dhibaato weyn oo nagu qabtay mar in dukaamada dhan la xiro amba businesskooda dhan la xiro maqaayadaha sida meelaha businesskooda dhan la xiro oo lockdown lagu soo rogo mar labaad ay imaadana in loo furo take away amba qofka soo galo oo la kala fogaado amba mask la soo xirto iyo tilaabo la soo jirsada ay joogtay haddana xoogaa intii corona la kana dhibaatooyin weyn businessidii waxay noqotay in kiradii nagu ururto hatta shaqaalihii meesha ka waxay shaqayn jirtay waxa ka shaqayn meesha 4 gabdhood waxaan ku soo rar 2 kaliya aniga hore waxaan ku shaqayn jiray 6 qofood wiilkayga aniga iyo 4 gabdhood ka shaqayn jirtay dhaqaale darteed ayaan shaqaalihii u dhinay oo shaqadii yar dadkii wax iibsanay ama dadkii la service gareyn lahaa ayaa meesha ka yaraaday oo dhaqaale ma jiraan meelii wax ka soo galay ma jiraan meelo badan xirxiran wali dadkii inkastoo ay dawladda furtay ilaa dadkii way baqayaan wali saameyn xoogan ayuu ku yeeshay COVID-19 guud ahaan maqaayadaha Koonfur Afrika iyo warshadaha soo saara cuntooyinka iyadoo shaqaalaha maqaayadaha oo lagu qiyaasay 70% ay lumiyeen shaqooyinkooda waxayna horay uga mudaharaadeen shaqo la'aan soo food saartay muddadii lagu jiray bandowga COVID-19 Mahad Maxamed Shaaq Universal TV Johannesburg Koonfur Afrika